madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul uga hadlay amni darro soo food saartay wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho taasoo uu tilmaamay inay si aad ugu soo xoogeysanayaan dagaalamayaasha al-shabaab weeraro joogtana ay halkaasi ka geysanayaan. madaxweyne Waare ayaa tilmaamay in haatan howlgallo ay ka socdaan qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose taasoo qaar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka yimid dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose ay si aad ugu soo xoogeysteen wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Muqdisho. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu u baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle in ay gacan ka geysato sidii looga xoreyn lahaa deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ee wadada laamiga dagaalamayaasha al-shabaab. annaga Hirshabelle haddaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsanay oo aan la tacaalnay ayaana fuula. hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarsan karin. howlgallada ka socda Shabeellada Hoose waa dad Soomaaliyeed, waa dad walaalaheena in cadawga laga dulqaado raalliyaan ka nahay. laakiin cadawgii Shabeellada Hoose lama layn annagoo noo soo guuray halkaanuu nala joogaa. waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyay oo ka dhacay Balcad, waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horeeyay. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arrintaas saameyn ku leh laga soo bilaabo dawladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqeyno sidii amniga wax looga qaban lahaa. marka arrinta koowaad oo saldhigga u ah oo doorka dawladda laga rabo waa amniga inay sugto. madaxweyne Waare ayaa warkan ka sheegay barnaamijka maalgashiga iyo beeraha kaasoo labadii cisho ee la soo dhaafay ka socday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.